ku soo dhawow muuqaal aad iyo aad u qurux badan Somaliland amba dalka Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa halkan ay imika jooga waa khayriyada magaalada Hargeysa muuqaalka dib ayaan kuugu soo celin doonaa bilowgiisii saad arkaysid waxaan joogaa khayriyada magaalada Hargeysa laakiin muuqaalku halka soo bilowmay waa bartan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو يوتيوب channel كيغا وانيغو عبدالشكور عبد الله كسو دوادا channel كيغا قاسي maanta waxaan soo gudbin doonaa muuqaalkan aad ciwaankiisa dusha ka aragtaan muuqaalkan waxaan ku doortay inaan isaga dib ugu bilaabo maadaama waqti dheer ay soo kan dambeysay aanan doonayo YouTube channel-kayga inaan u bedelo real time vlogs bal maanta waxaan soo duubi doonaa waxa iska bedelay suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa iyo qaabka uga duwan yahay suuqyada kale ee geeyiga Soomaaliyeed hadday noqoto jigjiga hadday noqoto Djibouti hadday noqoto Muqdisho yaani caasimadaha Soomaalida suuqii ugu casrisanaa la dhiso weeyaan fiidiyogan waxaan ka bilaabi doonaa magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Jigjigeer waxaan tagi doonaa imka si toos ah suuqii hoose sida aad arkaysaan imika waxaan sugayaa inuu baskii ina geenayo suuqa hoose inoo imaado waxaan jeclaaday inaan idin tuso sida ay u nool yihiin dadka localka ee ku nool magaalada Hargeysa iyo waxyaabaha gaadiidka ay raacaan bal halkan ma ka bilaabi doonaa muuqaalkeena imika waxa yimaade baskii oo baska ayaan raaci doonaa imika waxa soo kornay baskii bas walba wuxuu gudaha ku dhajistaa numberkiisa oo wadankeenu waa mobile transport money oo aad iyo aad halka ugu horeeya imika waxaan geli doonaa lacagta baska waxaan imika ka dhaadhacay baskii aan ka soo raacay xaafadda Jigjigeer waa kan dabadayda maraya soo imika waxaan ku soconaa targetkeeni badanaa dadkeenu way la yaabaan markay qofku uu kaligiis ka duubayo muuqaal oo wax yar qariib ku abay tahay marka ku soo dhawaada suuqa weyn ee magaalada Hargeysa imika waxaan maraya centerkii magaalada Hargeysa marka daawasho wacan wanaagsan baad leeyahay halkan waa halka basaska gawaarida wax kasta oo suuqa imanaya ay mostly ku kulmaan waa halka ugu jaamka badan magaalada Hargeysa soo kale waxaan joogaa beesha khayriyada Hargeysa loo yaqaan amba diyaaradii ismahan iga dambeeyad arkaysaan waa diyaaradii amba sida u taqaaniin ee goobta ugu taariikhiga badan magaalada Hargeysa halka waxa ka duuba muuqaal duube kasta muuqaal si qurux badan ayaan idin daawasiin doonaa waxa ku yaala history-ga dhammaan dalkayga Somaliland oo dhan marka bal waxaan leeyahay muuqaalkan daawasho wanaagsan iyo mushkilada ayaa jirta mobilkaygii aan sitay ayaa iga dhacay marka bal mobilkaygii waan soo check gareysan doonaa baskii iga dhacay inaan helo nasiib ayaan kaygan eegi haddaan waayeen waa nasiibkay bal muuqaalkii ugu hawsha badnaa buu ahaa maadaama khasaari abidi ugu weynaa isoo gaaray sababta mobilkaygii kale ayaan waayay bal daawasho diyaaradan aad arkaysaan waa history-gii Somaliland oo dhan waxa ku duugan taariikh aad iyo aad u xun
badanaa dadku in diyaaraddan halka la saaro wax xun bay ka soo qaadaan laakiin adduunka waddan walbaala history buu leeyahay sida Jarmalku uu leeyahay gidaarkii waqtigii burbur ku dhacay laga dhisay wadamo badan oo history leh baa jira waddan walbaaba taariikh soo Pakistan iyo Hindiya baa aragteen marka Soomaaliland taariikhdeedu diyaaraddan bay ka bilaabantay iyadayna ku dhamaatay alxamdulillah at the endina diyaaradii halka baa la saartay oo markii historygeedii la soo gabagabeeyay madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhismahan dib u suura geliyay alxamdulillah Muuse Bixi Cabdi wuxuu ahaa madaxweynihii ugu taariikhda badnaa Soomaaliland oo dhinac walba taariikhdiisu way leedahay haday dagaal noqoto haday maxay toole qurxinta waddanka noqoto marka sidaad arkaysaa sawiradan oo dhan dhamaantood history bay sharaxayaan sawiradaas waa burburkii magaalada Hargeysa waliba iyadoo dadkii dhex marayaan ayaa sawirka la qaaday oo qiiq iyo balaayo ka baxayso marka haddaan isiraahdo kaliya ta diyaaraddan taariikhda ku hoos duugan ambulance baa maraysan oo iga qeylinaysa kaliya haddaan isiraahdo taariikhda sawiradan ku duugan sharax saacaday ka qaadan doontaa muuqaalkayguna maanta muu khusaynin khayriyada magaalada Hargeysa oo maalin ayaan iyadoo soo noqon doonaa dadka wareysan doonaa insha Allah halkan building-kan ii muuqda oo idinku qaban doono waxa dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana la dhigi doonaa madxafkii wax kasta waxaana la dhigi doonaa taariikhiga Soomaaliland oo dhan waa madxafkii Soomaaliland weeyaan iminka waxaan dhex maraynaa suuqa weynaa magaalada Hargeysa niyo halkan waa halka ugu jaamka badan marka la eego dhanka dadka ma aha dhanka gaadiidka marka waxa noo yar saamix waay waqtigiina muuqaal ka gaarsiino oo maxay ahayd tole mobilka iga bilaadam noqdo wax badan baa la yar kulmay marka hadda waxa dhex maraya suuqii xilligan waa xilligii ciid soo dhaweyd soo sida daraadeed suuqa waa aad u jaam yahay sidoo kalena maxay ahayd tole dadkii ganacsiyadiiba ayaa xidhay ganacsiyada yar yar ayaa wadooyinka xidhay baabuurtana nigaas oo cabanaya wuxuu leeyahay baabuurta laga joojiyo dadka inta ciid adeeganayaan wadiga wadadii arkay maanta ay afar hadda meeshaas halkan afar had bay ahayd iminkana dadkii baa jaam ku jira oo dadkii baan socon karaynin sida arkaysaan suuqa iska dhalinyar baa joogta oo iska foodo badan yahay marka daawasho wanaagsan ganacsadayaal aad u da'yar baa meesha ka buuxa oo nin xijaab iibinaya nin kaba iibinaya nin dhar iibinaya oo la isku wada jira Soomaa waxay la socda maxamed maxaad ka tiri تماس والله هو وينك عاركيسay yidiina wali ma dhawa dhowr cisho wali ka haray صح hadana waa saas maanta muuqaalku waxa uu socday inaa suuqa weyn Hargeysa ka duubo marka bal adiga aragtidaada muuqaalkan suuq leeyahay maxamed والله wala fiican ka si fiican marka ay habeenkiina way ka si fiican wali baa oran la wali baa yaa habeenkiina aad buu si fiican meesha dadka weyn habeenkii aad u fiican tahay runta laakiin iyo habeenku waxa ku xun tahay madow aad u badan baa jiro lama duubi karayo yaa duuba saadagura ma ka hadlide abal joog gaariga ma nasigay meesha aad buu ciriiri u tahay meel gawaari mari karto ma dadkeena way dhaadagiino gawaari bay ku khasbayaan wadooyinkii daawasho wanaagsan baa dileen ninkii suu ila socday inuu iga dhuuntaa maxay sadii la socotay maan ku waayay hadda waxa soo galay meherad kamid ah meheradaha ugu casrisan dhanka elektarooniga magaalada Hargeysa meheradan waxa isku darsatay elektaroonig nooc kasta leh u baahnay marayda soo baahnay giibo taaloodo display moolka lagu saaraya maaytiira protection ki okay protection ma loo saaraya bal muuqaalku maanta uu dheer yahay ka gayoon meeno imika xagga suuqa sii galaya maxamed xasleey aad keer leexatid marka xagga suuqa sii galaya soo wax rabaa inaan hore uga soo dhamaado oo dhankii suuqeenu soconay iyo horumarka uu suuqii ku talaabsaday inaan duubo oo suuqii dad aad badan ma ku ganacsanaya wayna yar adag tahay inaad dadka Soomaalida wax ku dhex duubto marka bal insha Allah daawasho wanaagsan ma leeyahay muuqaalkii maxamed ay la yaabano way canaanay wax igu leeyahay ninkaagan mobilka kaga kacay gaariga imika waxaan tusi doonaa fooqa ugu dhismaha dheer dhanka dheer rahaan xagga jooga fooqa ugu dhismaha dheer magaalada Hargeysa meesha waxa wada yaala oo ganacsiyada yar yaraaba wadooyinka aad u wada taxan oo saad arkaysaan marka xataa wadada dad soconaysa waa dhulka iska eegtaa sababta nin baa laga yaabaa inaad ganacsigiisa jiido
السلام عليكم عيد مبارك والله dadka ciid bay isaga diyaar garoobeen rabadaan 15 dambe hadeegaag fooqana intuu si doonaa fooqa ugu dhismaha dheer magaalada Hargeysa halkana imika dhex taaganahay waa bartamaha suuqa Waaheen hadda waxaan dhex maraynaa dhismaha suuqa Waaheen muuqaalkeenu intii ugu muhiimsanay intan waxa suuqa qaybi way socotaa qaybna waa la dhameeyo waa tan dadkii ku ganacsanayaan oo ciidii wixii loogu diyaar garoobayo marka daawasho wanaagsan baa leeyahay bal suuqa oo yacni hadal badan kama geyoono maanta oo dhan dib haddaan hadallo yacni micnihii baa dhimanaya fiidiyowga duubayne marka daawasho wanaagsan muuqaalkeenu halkan buu ku dhammaan doonaa suuqa Waaheen aad iyo aad buu qurux badan yahay waxaan moodaysaa inaad suuqyada caalamka أدح مريسو بلدا وشونك تبلي hadda waxa soo dhameeyay deegaan muuqaalkii asaaka duubay sidaad arkaysaan waxaan ku soo noqday destination-kii dadka physics-ka dhigta aad u yaqaaneen 0.gaan ka dhaqaaqay ayaan isla dib ugu soo noqday muuqaalkan halkan baan ku gabagabaynayaa waxaan joogaa xaafadda Jigjiga yar gaar ahaan goolada sare dadka aad u garanaya ku soo dhaw magaalada Hargeysa daawasho wacan oo wanaagsan muuqaalkan wuxuu iga qaatay waqti dhan saakis deedii baan baxay iminkana waa 12kii 12 wallahi muuqaalkan wuxuu naga qaatay muddo 4 saacadood saakis deedii waan biloobay iminkana waa 12kii duurnimo every week waxaan soo gelin doonaa muuqaal aad iyo aad u qurux badan muuqaalkan wuxuu ahaa furitaanka YouTube-ka waxaan aad iyo aad idinka raali gelinayaa dhammaan dadka igu xidhan YouTube channel-kayga ku xidhnaa maqnaashiyaha dheer ee waqtiga qaatay ee YouTube channel-kayga ka maqnaa muddo 3 sanadood ahayd sidaad halkan hoose ka arkaysaan muddo 3 sanadood ayaan YouTube ka maqnaa I came back in soo laabtay weliba update baan la soo laabtay insha Allah week kastana muuqaal ayaan soo gelin doonaa daawasho wacan wanaagsan ee muuqaalka